tani qarnigii tagay waxaa jiray kacdoon xooggan oo xagga waxbarashada ah wax waliba waa isbedeleen kolka dhan walba laga eego manahijtii biyada aynu ku noolahay macallimiinta tubtii daraasada qiimaynta iyo ardayga kuwa intuba waa isbedeleen qaabkii soo jireenka ah manhajka ardayda la barayaa isma raacsana sida caadada ah waxaa ardayda lagu qolambiyaa maadooyin aan dhinac wada jeedin ama aan wax xiriir oo ka dhexeeya aysan jirin ardaygu waxa uu kol walba weydiinayaa tanina maxay ahayd maadooyinka kolkaad si gaar u eegto ma jira maxsuul dhabo oo la oran karo ubadkaagu waxuun bay ka barteen waxaana laga gartaa caajiska ka muuqda ardayga xayrannimada xagga maskaxda oo si guud u wada gaadha waxaad ka garataa kolka aad booqato fasalka mid waliba buug buu dhinac la fadhiya ardayga noocaasay loogama faa'iideen lamana socdo dunida halka ay maraysa maanta iyo qarnigan 21aad macallimiintu waxay ka dhigan yihiin sida baahiya oo iska fataha kolka uu ardaygu soo hor istaago waaba haddii uu yahay macallin gobolku aqoonsan yahay wax xiriir oo ka dhaxeeya isagii ardayda haba yaratee ma jiraan halka imtixaanka uu kolka dambe ardayga ka qaadaya aflixiisuuna uu ku xiran yahay hadba sida ardaygaasi uu soo xifdiyo buuggii loo dhiibay halkii laga doonayay inuu garasho maangaaxis u liqo aqoonta ay xifdinuun ku afxidhanto intuba wax xiriira lama laha tan taagan cisho walba ee qaabka waxbarashada casriga ah fasallada ay ardaydu ku jiraan waa wada caajis waxay ku salaysan yihiin macluumaad uun lagu hanqariyo ubadka wax dareen warcelin iyo wada shaqayna oo ay ku kaabaan ardayda macallinka jadbaysanay soo shaqo tagay dunidu imika waxay isugu qofalan tahay si ka dhow sidaad moodayso waxbarashadii caadiga ahayd ee aan naqaanay tani imika ka tagtay oo laga gudub imika waxaa loo kacay tu u gaadha qarnigan 21aad siday u dhan tahay ay ku sal xidhan tahay guddoonsiinta furaha ka gudubka caqabad walba ee ardayga xallinta caqabadaha hal abuurka ka warcelinta aragti xeel dheer xirfadaha dhiiranaanta iyo dhaqaale abuurka iyo intaasoo wada shaqayn lagu ladhay nidaamka cusub ee waxbarashada STEM waxaa judhiba dafis wada oranaya qaybihii Science, Technology, Engineering and Mathematics iyadii oo ka dhigan manhaj iyo mashruuc kaliya macallinku imika ka dhiifoon kii sida waxbarashadii soo jireenka ahayd wuxuu hayaba ugu hanqarin jiray ubadka kani waxa uu dhiibaya ardayga xog urursan qaabaysan la san qaadi karta xilligan ay aqoontii sare kacday iyadoo ay intaa u dheer tahay in ubadku si sahlan u liqi karo macluumaadka macallinka gobolku aqoonsan yahay uu dhiibay qaab dhismeedka aqoontan casriga waa mid ay khubaro gaamuray isugu tageen isla markaana asaaska u dhigeen tu wax ku oola oo dhammaan ubadka qarniga nool ay mahdin doonaan waxa ubadka la gaarsiiyay heerka aqoonta ee qarnigan 21aad ka garata siday ugu hiloobaan dugsiga iyo macallinka isla markaana ay ugu baahi qabaan inay gudaha ugu dhacaan tani inta ay heerka gaadhaan dhibcaha ubadka ayaad ka garataa tani imika gaadheen kolka lagu soo celiyo maxsuulka imtixaankii uu gobolku ka qaaday ubadkaaga